halkan oo ah xarunta Masjidul Baari isla markaana uu gacanta ku hayo Sheekh Doon Macalin Cali kana mid ah masaajidda ugu waaweyn magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay munaasabadda xuska dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. munaasabadan oo si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimaaddin xer iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka masjidka iyo sidoo kale madaarista hoos timaada Masjidul Baari. iyadoona intay socotay munaasabadan qaar ka mid ah culimadii lagu casuumay munaasabadda ay goobta ka soo jeediyeen muxaadarooyin ku saabsanaa sirada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. fardun calayna xubbuhu wa yanfacu bidhi wa fil qiyaamati aqismaci ولو علمناه لفزنا الأضراعي. متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولو بدبادها أما عصيان كالنبي عليه الصلاة والسلام لباتا يا لغلق كل ما هي هو أهل النار كقيامة يتمنين هيان إن النبي عليه الصلاة والسلام حل سانفعين ندامل أي شلاي الدونان. يقول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قيامة قفك ظالمك قعنا يوقنين الدونا آد بوش اللين دونا وحوران دونا نبي عليه الصلاة والسلام معي سمحاوي لنوايي كدي الطريق نبي محاوي راعي ويوران دونا مركب فوائد بدن بالله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسوق قابنا يا صحابة رسول الله وحيرا كسوق قابنا يا يضطر كدم بيان سيدة كوها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مال بوحو فيري لقى حلينا حجر أسود مركز وحو كيري إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. وحجر وحا أغاينا تيدقح لا تضر ولا تنفع وحنا مدي بسد وحنا ما أنفع سد حديث كيرين لها إنا أركي رسولك عليه الصلاة والسلام كل كون هي ما نكل كذن بجري ثم قبله دقح بكوضي سيدنا عمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدك عبد الله بن عمر مالين بالله كبال ليري هو ابن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنه. ابن عمر على أرك مالين أصو هشي سميل كوريتنا هي مركزا لويدي محاك ودا لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. أنا موجي النبي عليه الصلاة والسلام وارنتان سمعنا هي أنه سمين مركي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاي هاي أصحابه مركي النبي وجو صوت كذا كورا رعية صوت كأصحاب طالما قالين صوت كنبي إنه ككرمه. سيد الله سبحانه وتعالى آيات قرآن وكل شيء يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. التاس waxay u sameynayaan maxabada nabigeena ay jecel yihiin way maxabadu iska keen ma ahana qofka ilaahay mid ku arzuqo waxa la maxabada ina isfiirisid adigu ay isku darooshid ina nabiga jeceshahay iyo ina iska keenaysid iyo in adiga nafsadaada inay ka soo fushay adiga marka hore iskantarool horta ya sayyidi ya rasuul allah isma' nidaai ya balbatuli lam yawma taqulu ya habibi ahla wa sahla qul li rasuli
لك قم لي صريعا مع القبول نبي كيف تنام وكيف غارت عين فقادت وجه الرسول maadaama xafladdaanu ay tahay xaflad nabiga lagu soo dhaweynayo oo lagu tacdiiminayo oo loogu farxayo oo loogu dabaaldegayo aalubeydkiisana inaan sidoo kale ugu faraxno ayaka ayaan ku wareejinayaa insha Allah ayaka noo soo khatimaya ilaahay mahad iska leh soo dhaweynta soo dhaweysan waa idinka la gadoomnay xafladan quruxda badan bitacdiimi mawlidi rasuuli sallallahu alayhi wa sallam laga weynaynayo marka nabigana wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walba qofku jecel yahay sheegiisa ayuu badiyaa qof walba qofku jecel yahay miciisa ayuu maalinka qiyaamana noqdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa caawo idil hadii la wado lama soo koobi karo marka tii uu xasan u dhahay way waxaad u malaynaysaa in lagu abuuray saad rabtay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis ku shiisa haato marka siiradiisa laga sheekayo oo la iskugu imaado oo mawlid la dhigo waa iska afar shay maxaa yeelay imaatinka kulay uma malaynaa inay wax dambi ah tahay maxaa yeelay malaa'igba waxa la leeyahay way soo tagayaan arligay wareegayaan waxay intaas oo idil ay goobayaan qola oo xuska ilaahay wado markay goobaan bay leeyihiin waatana kaalaya markaas fiihi musakina wa nazala umur rahma way markaas ay ku soo degaysaa mid labaad waxa kamid ah salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in la qaado ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay inna allaha wa malaa'ikatu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ilaahay malaa'iktiisa nabiga ay ku sallinayaan kuwii allii rasuul rumeeyo nabiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam wa nurun min wajanatihi yatawaqqadu ورد الحبيب